kulankani ay isugu yimaadeen gudida qabanqaabada 18 May ee gobolka Awdal oo ka qabsoontay xarunta looga arrimiyo gobolka ayaa waxa uu ahaa kulan lagu lafagurayay sidii kor loogu qaadi lahaa xuska maalinta qaran ee 18 May ayaa waxa halkaasi lagu doortay gudiyo u kala qaabilsan bilicda qabanqaabada iyo gudida maaliyadda kulankan oo ay warbaahintu dibad joog ka ahayd ayaa markii la soo gabagabeeyay waxa warmurtiyeed ka soo baxay sharaxay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal ahna gudoomiye ku-xigeenka gudida qabanqaabada xuska maalinta 18 May Cabdiraxmaan Nuur Sugaal waxana uu yiri gudida qabanqaabada ee gobolka 18 May shirki koobaad waxaan kala qaadanay amaamirtii iyo sidii loo shaqeyn lahaa gudiyadii baan kala jajabinay gudida bilicda gudida qabanqaabada iyo gudida maaliyadda saddexda gudi baan u qaybinay laga bilaabo maanta waxaan wadaynaa shaqadii sidii loo wadi lahaa ayaanu bilownay iyo bilicda sidii loo nadiifin lahaa magaalada walaa tartamayaan tartan baa ka dhaxdhacaya tartanka ka dhaxdhacaya waxaanu gobolka Awdal ku dadaalaynaa inuu noqdo gobolada koowaad waa Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama.